Bismillahirrahmanirrahiim waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee channelka Gunta Wararka TV. Qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah Xasan Sheekh oo u hanjabay madaxweyne Farmaajo, Axmed Madoobe oo wada qorshe uu xilka kaga qaadayo labadiisa ku xigeen, Mareykanka oo hal sabab darteed u bedelay safiirkooda u fadhiya Soomaaliya, Fahad Yaasiin iyo Saadiq John oo wada qorshe culus oo loo dejinayo amniga caasimadda iyo ciidankii ugu badnaa ee dharcad ee lagu daadiyay magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo isbahaysi cusub la sameysanaya madaxweynaha Puntland, siyaasiyiin caan oo ka dambeeyay in ciidanka militariga Soomaaliya ay ka soo baxaan furumaha gobolka Shabeellaha Dhexe banaanbaxna ay ka dhigaan magaalada Muqdisho, iyo dowladda Qatar oo diyaarisay qorshe culus oo ay saameyn kaga yeelan karto doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya. Intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii wararka ugu doorka roona ee channelka Gunta Wararka TV. Waa 22 bisha June sanadka 2020. markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. Xog aan helnay ayaa sheegaysa in magacaabista golaha wasiirada cusub ee maamulka Jubbaland in lagu dhawaaqi doono saacadaha soo socda, isla markaana Axmed Madoobe uu ku dhawaaqi doono golo wasiiro oo ay ka soo muuqan doonaan siyaasiyiin caan ah iyo sidoo kale xubno mucaarad ku ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa laba jibaaray kulamada uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dadka siyaasiyiinta ee isaga ka agdhow si uu wada tashi ugala yeesho arrimaha la xiriira magacaabista golaha wasiirada cusub, iyadoo mashquul badan ay ka jiraan madaxtooyada Jubbaland. golaha wasiirada cusub ayaa loo saadaalinayaa inay ka soo muuqan doonaan sidaan xogta ku helnay Cabdinaasir Seeraar, Maxamed Cabdi Oogle, Maxamed Sheekh Buraale iyo sidoo kale Cabdirashiid Maxamed Xidig, waxaana dadka qaar ay saadaalinayaan in uu ka soo muuqan doono Cabdinuur Cali Aadan oo wasiir hore ka soo noqday dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale sidaan xogta ku helnay waxaa laga yaabaa in dib loo soo celiyo Cabdirashiid Xidig oo dagaal fara badan la galay dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana dowladda Soomaaliya ay wali u aqoonsan tahay in uu yahay baxsad ka baxsaday gacanta cadaaladda. Maxamuud Sayid Aadan oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland ayaa la saadaalinayaa in isaguna uu weyn doono xilkaasi, waxaana lagu bedeli doonaa sidaan xogta ku helnay siyaasi caan ah oo laga yaqaano deegaanada Jubbaland. Cabduqaadir Lugo Dheere oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland ayaa isaguna la saadaalinayaa in la bedeli doono si loo qanciyo beesha Shiiqaal. Axmed Madoobe ayaa qorsheynaya in uu saami weyn ka siiyo beelaha Soomaaliyeed ee muddo ku qadnaa deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale siyaasadda iyo xilalka dowlad goboleedka Jubbaland si uu taageero kaga helo beelaha uu horay u dulmiyay. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in uu awood siiyo beelaha qaar ee Jubbaland si ay kala qayb galaan dagaalka uu kula jiro dowladda dhexe. war-saxaafadeedkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa ahaa mid ka duwanaa kuwii hore, maadaama madasha xisbiyada qaran ay si adag kaga hadleen xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. war-saxaafadeedkii u dambeeyay ayaa ka koobnaa 7 qodob, wuxuuna ku qornaa sida dadka qaar ay aaminsan yihiin luuqad siyaasadeed oo aad u adag, waxaana hadalheen badan uu ka dhaliyay doodaha siyaasadda. fariintii ugu dambeysay ee madasha ay soo saareen ayaa ahayd mid ay aad kaga qoosteen dowladda dhexe iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya, isla markaana ay fariin adag ugu direen labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, waxaana digniin culus ay u direen madaxweyne Farmaajo oo ay kula hadleen luuqad siyaasadeed oo aad u adag. dowladda dhexe oo haatan ka kooban 2 hay-adood oo kala ah sharci dejin, baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo fulinta oo ah xukuumadda Soomaaliya, ayaa baaqa madasha si toos loogu socodsiiyay maadaama labaduba ay yihiin 2 awoodood oo go'aan ka gaari kara arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana meesha laga saaray hay-addii saddexaad ee ah hay-adda garsoorka. dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa fariintan ku tilmaamay tii ugu adkeed ee ka soo baxda madasha xisbiyada qaran, waxaana ka dhalan kara haddii la iska indhatiro qalqal xoog leh iyo sidoo kale degenaansho la'aan uu dalku galo. Maxamed Maxamuud Cadde, wariyihii hore ee BBC-da, ayaa warbaahinta u sheegay in fariintan ay tahay
mid aad u adag sidoo kalena ay meel dheer ku socoto haddii aysan ka jawaabin labada gole ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya wax culus ayaa ka dhalan doona sida uu sheegay waa fariin mugle waxaa muuqata inay ka quuseen xukuumadii iyo madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxay cadeeyeen in xukuumaddu ay ku fashilantay in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod sidoo kale baarlamaanka ayay il gaar ah ugu baaqeen fariina ugu direen ayuu yiri Maxamed Maxamuud Cadde oo ah wariye ka tirsanaa BBC-da haddana kamid ah dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya fariinta madasha ayaa dad badan waxay u fasirteen in luuqad adag oo aad u culus lagu hadlay madaxtooyada Soomaaliya bedelkeedna jawaab loogu diray xukuumadda federaalk ee Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaa ka soconaya kulamo xasaasi ah oo ay yeelanayaan madaxda sare ee maamulka Hirshabelle gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cali Guudlaawe Xuseen iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed kulamadii ugu dambeeyay oo ahaa kuwa xasaasi ah oo ay yeesheen labada mas'uul ayaa aad looga hadlay xaaladda guud ee deegaanada Hirshabelle gaar ahaan khilaafka ka jira guddoonka baarlamaanka iyo sidoo kale madaxtooyada maamulka Hirshabelle iyo sidoo kale in go'aan mideysan laga gaaro arrimaha khilaafka sidoo kale labada mas'uul ayaa aad uga wada hadlay in go'aan mideysan iyo tashi laga wada yeesho hanaanka loo galayo doorashooyinka soo socda ee Hirshabelle sida aan xogta ku helnay kulanka ayaa lagu xaliyay madmadow ka dhex jiray labada mas'uul kaasoo sababay khilaaf soo kala dhex galay madaxda ugu sareysa ee maamulka Hirshabelle gobasha waxaa dhigay odayaasha dhaqanka ee Hirshabelle wuxuuna kulanka ka dhacay guriga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen waxaana lagu heshiisiiyay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cusmaan Barre Maxamed iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cali Guudlaawe Xuseen waxaa loo ballamay in kulan kale lagu heshiisiiyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle iyo madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare oo hadda ku sugan magaalada Beledweyne odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Hirshabelle ee ku jira dowladda dhexe ayaa doonaya in heshiis rasmi ah laga gaaro khilaafka u dhaxeeya madaxda sare ee Hirshabelle si wadajirna ay ugu diyaar garoobaan doorashooyinka ku soo foodle maamulkaasi safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Yamamoto ayaa la bedelay kadib markii dowladda Mareykanka warqad ka soo baxday lagu bedelay dowladda Mareykanka ayaa heshay xog ku saabsan in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay damacsan tahay in ay siiso safiirkaasi warqadda la yiraahdo PNG oo ah inuusan ahayn shakhsi loogu baahan yahay Soomaaliya isla markaana laga ceerin rabo Mareykanka ayaa xogtaas markii uu helay kadib waxa uu soo saaray warqad degdeg ah oo lagu bedelayo safiirka sidoo kalena waxaa loo bedelay safiirkaasi dalka Djibouti Mareykanka ayaa diidan in lagu sumcad dilo Danjira Yamamoto gudaha Soomaaliya isla markaana warqad ka soo baxday dowladda Soomaaliya looga ceeriyo guud ahaan dalka xogta aan ayaa sheegaysa in safiir Yamamoto loo bedelay inuu noqdo safiirka Djibouti u fadhiya Mareykanka halka midkii Djibouti u fadhiyay Mareykanka loo soo wado Soomaaliya sida qorshuhu uu yahay magaalada Muqdisho waxaa kulan xasaasi ah ku yeeshay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya علي سعيد فقي iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Dr. Maxamed Gacal labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhex jira labada maamul iyo hadallada xanafta leh ee ka soo yeeraya siyaasiyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Galmudug علي سعيد فقي ayaa hordhigay shuruudo ku saabsan in Galmudug ay xaliso marka hore cabashooyinka la xiriira beelaha ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo ganacsatada ay ku qabaan dhibaatooyin la xiriira ganacsigooda deegaanada Galmudug sidoo kale labada mas'uul ayaa aad ugu wada hadlay sidii loo xoojin lahaa taageerada ay u hayaan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo in labada baarlamaan ay ka mideysnaadaan arrimaha la xiriira warbixinada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo go'aan mideysan inay ka qaataan warqadaha xanafta leh ee ka soo baxaya xildhibaanada iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa ka mid ah maamulada sida weyn u taageera dowladda federaalk ee Soomaaliya waxayna ka gaabsadeen warqad dhawaan ay soo saareen maamulada kale ee Jubbaland Puntland iyo Hirshabelle kuwaas oo lagu taageerayay go'aan ka soo baxay aqalka sare waxaana labadaasi maamul iska diideen
in shirar ay leeyihiin labada dhinac inay ku biiraan iyo sidoo kale warqado si wadajir ah ay u soo saari lahaayeen maamul goboleedyada dalka kuwaas oo lagu mucaaradayo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Kooxo hubeysan ayaa xalay xaafadda Fagax ee degmada Yaaqshiid waxay ku dileen wiil dhalinyaro ah oo la sheegay inuu ka mid ahaa dadka ku shaqeysta mootooyinka loo yaqaan bajaajta. sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen marxuumka waxaa dila rag damacsanaa inay ka dhacaan mootada uu watay ha yeeshee marxuumka ayaa diiday inuu dhiibo furaha mootada kadibna waxay hubiyeen rasaas maadaama ay qoryo waaweyn ku hubeysnaayeen. marxuumka oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Cabduqaadir Goosaar ayaa ka mid ahaa dhalinyarada xaafadda Fagax ee degmada Yaaqshiid wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaro ku shaqeysta mootooyinka bajaajta. kooxihii dilka geystay ee rabay inay mootada dhacaan ayaa ka baxsaday waxayna qaateen oo ay la baxsadeen mootadii ay wiilkaasi u dileen. maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacaya falal argagax leh oo ay geysanayaan kooxo hubeysan iyo ciidan ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ay ugu dambeysay laba dhacdo oo naxdin leh oo ka kala dhacday isgooska X Control Afgooye iyo sidoo kale isgooska Ceelgaabta ee degmada Xamar Jajab maadaama laba muwaadin oo ahaa loo dilay 2,000 oo shilin Soomaali ah iyo sidoo kale 5,000 oo shilin Soomaali ah. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaa kusoo gabagabeynaya warkii aad ka daawanayseen Gunta Wararka TV. daawada haddii aad ku cusub tahay channelka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee channelka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada. sidoo kale daawade waxaad furataa gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee aan halkan ku soo daabacno.